haddaba qodobada barnaamijka galabnimo aan idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona arrin cajiib ah oo ka taagan xarunta Mareykanka uu ka sameeyay dabagalka xaaladaha Gaza ee duleedka magaalada Gaza. haddaba xarunta ayaa isku haysta maxaase lagu arkay warbixin ay ka qortay jaridda Guardian ee wadanka Ingiriiska iyo sidoo kale isla markiiba jawaab ay goordhow soo saartay Israa'iil. haddaba xiisada ka jirta xaruntaasi Gaza Mareykanka uu ka sameeyay maxaa ka taagan faahfaahin baan idinkaga hayaa. koox ka tirsan Xamaas iyo ICRC oo wada socda ayaa maanta ku dhaqaaqay inay raadiyaan lafaha Israa'iiliga ugu dambeeya ee Israa'iil ku xujeysay in loo gudbo wajiga labaad, laakiin galabta ayay war soo saareen ma heleen mise waa la waayay. haddaba tafaasiisha sheekada iyana barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. qatar iyo Sacuudiga oo kulamo xasaasi ah madaxdoodu ay qaateen war laga soo saaray. haddaba kulankaasi muxuu yahay, maxayse qatar iyo Sacuudigu ka wada hadleen, iyana waan idin hayaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno asxaabay wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road oo aan ka fogeyn safaaradda dowladda China ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Emara Luxury Homes Limited waxay ku diyaarinayaan 2 dhismo oo dhaadheer oo caan ka ah magaalada Nairobi dadkuna ay u aayayaan mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba. waa Parkland iyo halka lagu magacaabo amaba agagaarka waa xagee waa City Park Drive 6th Avenue. dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkadaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi. waxaa hagaya oo hogaaminaya waa sayidka Soomaaliyeed, waa sayidka geeska Afrika ee yaan la moogaan guud ahaanba maamulka guud ee shirkadda la jeclaystay Emara Luxury Homes Limited. kulanto wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan galab wanaagsan. waa barnaamijkeennii labaad, waa barnaamijka galabnimo maanta Isniin aan idiin soo gudbinayno. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Xamaas iyo ICRC oo wada socda ayaa baaritaan waxay ka sameeyeen maanta xaafadda la yiraahdo Khan Yunis, meel ay joogaan ciidanka Israa'iil. iyada ayaa ku xujeysay oo tiri ilaa nin sargaala oo booliisa ayaa naga maqan oo ka mid ah dadkiina la ka dilay 7 Oktoobar sanadkii 2023 markii Xamaas ay soo galeen gudaha Israa'iil. haddaba ninkii maanta meel kasta la galay, meel kasta ay Xamaas u maleynayeen waa la baaray. galabkii ayay soo laabtay. isla markiiba waxay la hadleen saxaafadda. waxay yiraahdeen wax aan soo aragnay oo lafa ah ma jiraan. annaga nagu lugoynaysaa Israa'iil waxaas. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray. haddaba waxaa la soo sheegayaa in ay dhammaatay baaritaankii ama raadintii la raadinayay
lafaha mid ka mid ah maxaabiista Israa'iil kaasoo la sheegay in aan la soo helin. wariyaha telefishinka Al-Jazeera ee Gaza ku sugan ayaa sheegay inay dhammaatay howlgal maanta ay sameynayeen dhanka bari ee xay Zaytuun meesha la yiraahdo. Hamas hase ahaatee waxaa la sheegay in howlgalkaasi baaritaanka ama raadinta uu ku soo dhammaaday wax la'aan oo wixii la raadinayay ama lafihii yahuudigii la raadinayay waa la waayay. Hamas marka waxay sheegaysaa meelaha ay ku tuhmaysay meelahaasi ahaayeen haddii laga waayo rajo badan ma laha. Israa'iilna waxay leedahay hal la raadiyo. marka halkaas mushkilad weyn ka taagan leeyahay ICRC-da iyo iyaga iyo kulli hawsha way ka wada shaqeynayeen. haddaba qodobka halkaas kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka galabta aynu ku faahfaahinayno wararkeena waxaa ka mid ah markazu tansiib ama xarunta isku dubaridka howlaha Gaza xarun la yiraahdo ayay Mareykanku waxay ka hirgeliyeen duleedka Gaza. xaruntaasu marka xarun shacab ayaa lagu sheegaa laakiin waxaa ka shaqeeya oo jooga ilaa 200 in ku dhow oo ciidamada Mareykanka ah. xaruntu marka waxaa loogu talagalay inay ilaaliso wixii lagu heshiiyay Gaza inay shaqeeyeen iyo inaysan shaqayn. xabad joojinta in la jabiyay iyo inaan la jabin. gargaarkii inuu galay iyo inaanu galin. maxaabiistii iyo lafihii la isdhaafsanayay in wax ka dhiman yihiin in la fududeeyo. ICRC iyo Hamas marka ay baarayaan meel ku dhow ciidamada Israa'iil inaan wax dhibaato loo geysan. marka howlahooda shaqadaasay ku bilaabeen. waxaa kaloo xaruntu ay ka sii shaqayn doontaa haddii la gaaro waqtiga ciidamada ay tagayaan Gaza ee nabadda in iyadana xaruntaas ay hoos tagi doonaan oo xarunta laga maamuli doono. marka xaruntu marka si loo fiiriyo ahmiyad iyo muhiim ayay u tahay shaqada Gaza ka socota. xaruntu Israa'iil shaqa kuma laha, sidoo kale Hamasna shaqa kuma laha. Mareykan iyo dowlado kale ayaa meesha ka shaqeynaya maadaama dadkii la kala celinayay ee labadooda ahaayeen. sheekadu marka saasay ahayd. laakiin wax la yaab leh ayaa dhacay maanta. jaridda la yiraahdo Guardian ee Ingiriiska ka soo baxda oo aad loo soo xiganayay saakayoo dhan ayaa waxay leedahay meesha waxaa la ogaaday Israa'iil qalab inay ku rakibatay. wax walba meesha ka socda waaba basaasayin way dhageysanayeen. sharciyaduna ma aha qof adiga xadgudubkaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga ilaalinaya ina asaga sii basaasto. dadkii meesha tagay waa shakiyeen. Mareykankii waxaa lagu yiri meeshan waxbaa ku jira. dowlado kale xubno ka socda oo aan la magacaabin ayaa meesha tagay kadibna sheekadu markaas soo baxday. haddaba markaan idin soo wararka cajiibka ah ee sheekadan ka soo kordhay telefishinka Al-Jazeera oo warbixin ka diyaariyay wuxuu yiri jaridda la yiraahdo Guardian ayaa waxay sheegtay Israa'iil inay dhageysanayso ciidamada Mareykanka ee ku sugan xarunta loo sameeyay isku dubaridka Gaza. jaridda Guardian ee waddanka Britain laga leeyahay ayaa soo xigatay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta Israa'iiliyiinta ayagoo sheegay in halka shaqo ku saabsan dhageysi iyo la socod waxa Mareykanka iyo kuwa kale halka jooga ay ka qabanayaan. xaruntan ayaa waxaa laga dhisay deegaanka la yiraahdo Kiryat Gat oo ku dhow magaalada Gaza. marka mawjadaan jaridda Guardian waxay leedahay iyaga ii sheegay Israa'iiliyiin kale ayaa waxay u yiraahdeen waxa meesha ka socda dhan gacanta ku haysanaaba. markaas Mareykankii baraarugeen ninkii madaxda ka ahaa meesha taliyihii wuxuu la hadlay Israa'iiliyiinta wuxuu yiri wixii hore waaye laakiin hadda waxaan qalab iyo waxa meesha ku xiran hana la ka saaro. meeshan waa meel markazu tansiiq ah xarunta isku dubaridka howlaha dadka la ilaalinayo adika kamida. sidee anaga noo ilaalinaysaan marka yuudan lugooyo waay. markii sheekadii marka kululaatay ayay galabta iyagana war soo saareen. haddaba wakaalada wararka ee Anadolu waxay leedahay Israa'iil waxay sheegtay inaanay jaajuusaynin oo aysan dhageysanaynin xarunta isku dubaridka Mareykanka ee magaalada Gaza.
haddaba israa'iil waxay si kulul u cambaaraysay wararka sheegaya in halkaa ay jaajuusnimo ka wado oo ay basaasayso dhagaysanayso ciidamada iyo dadka kale ee ka shaqaynaya xarunta. war waxaan annaga shaqo ma kuleyna ee waxaa la yidhaha qalabkan meesha ku dhegan muxuu yahay markii hore noogu dheganaa kulaha meesha meel waxay ahayd ciidankeenu degan yahay ciidankii aan ka rarnay adinkaa degay soomaa ciidanka laftirkiisa ayaa ciidamo kale oo sii jaajuusay warnimo ku baxaay maraykankii indhaa ka soo aray marka adi awl waa islahaydeen ay leeyihiin nimankan annagu kuma shaqayn karno. marka wararka qaar waxay sheegayaan warbaahinta qaar in dadka sheekadan arkay ay turki ahaayeen. turkida ciidan ahaan ma ogola israa'iil inay tagaan, laakiin maraykanka isaga ayaa wuxuu keenayaa xarunta inay ka shaqeeyaan maadaama hawl weyn laga rabo turkida. marka niman turkiya oo meesha tegay iyo qolooyin kale oo aan la sheegin ayaa waxaa la sheegay inay iyagu heleen xogtan in waxa meesha ku jira la basaasay. israa'iil marka waaga ku bariyay sheekadeedii waa ka shifantay. marka arrimaha la yaabka leh ayaa xarunta ka socda sida la leeyahay. waaye qodobka kale ee barnaamijkeena galabta aan idinkugu soo gudbinayno wuxuu yahay maanta markii la baahiyey xabsiyada israa'iil inay ku dhinteen 110 qof intii uu joogay bin ghafiir wasiirka amniga laga dhigay oo xabsiyada iyo waxa kan isagu maamulayay oo xataa hadda falastiiniyiintu ay leeyihiin ninka hawsha ka dambeeyay dadka meesha ku laayay waa asaga. sababtoo asaga hore wuxuu u yiri dadkan intaa xiri lahayn cunto iyo dawo iyo ilaalin iyo nooga bixi lahayd inaan ka takhalusnaa fiican u yidhi. marka ka takhalusidii isaga waa adeegtay 110 u dilay. arrintii marka buuq fara badan ay ka dhalisay caalamka dad maxaabiisha sababta loo leynayo. waddanka Spain ayaa marka arrinka xildhibaano ilaa 22 gaaraya ayaa si weyn uga carooday oo markaa ku qasbaya dowladda waddankaas iyo Yurubiyankaba shuruuc cusub oo ilaalinaysa maxaabiista Falastiiniyiinta in markaa laga hirgeliyo. Israa'iilna lala hadlo la yiraahdo maxaabiista way u laynaysaa. marka haddaba sheekadan aan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay xildhibaano Swedish waa Sweden xildhibaano Swedish ayaa waxaa la sheegay inay markaa iyagu la safan yihiin maxaabiista Falastiiniyiinta. haddaba xisbiga dhanka bidixda u janjeera ee waddanka Sweden ayaa waxa uu yiri in markaa baarlamaanka ay sameeyeen xubno ka tirsan 22 xubnood oo garabka bidixda ah inay markaa doonayaan inay baarlamaanka Yurub ay markaa geeyaan sheeko ku saabsan sidii dadka maxaabiista Falastiiniyiinta ah loo ilaalin lahaa qadiyadooda iyo mu'assasaadkooda sharcigaana Yurub markaa loo geyn lahaa. marka waa kaas Spain ma waa nimankan Swedish waaye Sweden 22 xildhibaan. marka waxay yiraahdeen waxaan wax la fiirsan kara ma bani aadanimo ma laakiin sheekooyinkaas iyo maxkamad hebela saatiri iyo hala soo xalaaleeyay Netanyahu waxaasu wax ay Israa'iil qorayso ma jirto meeshaan. haddaba marka warbixinadaas inta ayaynu kaga gudbaynaa. qadar xayisiisa ku dib waxaan galaynaa Qatar iyo Sacuudiga oo kulan xasaasi ah yeeshay. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markasu daaru taqwa. shirkadda dhismaha guryaha ee Qibla Homes. shirkadda Qibla Homes waxay mashaariic ka wadaa Nairobi, South Sea iyo Mombasa, Nyali. shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex, 4 bedrooms duplex, 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedroom, 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah. guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha. qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo Turkish style ah. guri kastana waxa uu leeyahay masaajid, madaraso, swimming pool iyo gym, playground, meelaha lagu caweeyo ama sitting area, wiishashkii, motor automatic ah, ceel biyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard
iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali adigoo kala xiriiraya telefoonada iyo emailka shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii galabnimo maanta waa isniin waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay waa wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn saakay barnaamijkaygii isaguna waxaan kusoo gudbinay warbixino xiiso leh haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa amiirka dowladda qatar ayaa wuxuu booqasho ku tegay waddanka sacuudiga magaalada riyaad wuxuu la kulmay dhaxal sugaha sacuudiga ayay halkaa isku arkeen marka tamiim bin xamed oo qatar ka socday iyo maxamed bin salmaanka sacuudiga waxay yeesheen kulamo xasaasi ah heshiisyaa la gaaray heshiisyada marka waxaa ugu muhiimsanaa 2 arrin midda koowaad الدفاع المشترك وحل هذا الحوق لوغا شقاي واتي مركي هوربا خليجka kulankiisii ugu dambeeyay Kuwait ay soo saareen inay sameystaan difaac mid ah sida wadan kamida khaliijka hadii la weeraro ay la mid tahay wadamada kale oo dhan in la weeraray marka khaliijka oo dhan ay dagaal ku qayb ka yihiin tiimaan hore dhacday oo Dooxa la weeraray Qatar Israa'iil inta weerartay kuwii kalena iska fiirsanayeen ayaa xoogaa maaratay ayaa keentay marka shirka marka xoogiisa halkaas ku soo bilowday Qatar iyo Sacuudigana hadda waxay si gaar ah iyaguna u sameysteenayaan wax la yiraahdo ad-difaac mushtarak oo khaliijka oo dhan iyo labadoodana gaar u ah ayay sameysan doonaan marka arrimahan oo dhan marka waa cabsidii ka dhalatay Iiraan markay weerartay Qatar Iiraan way weerartay إسرائيل قدر weerartay marka waxay yiraahdeen maalin walba hadii qolo iska kaana soo weerarayso aan samaysano al-difaac mushtarak waxa la difaac wada jira oo aan wax walba kaga hortagno marka arinka marka muhiim gaar u lahaa arinta kale oo aadka xiisaa u leeyahay waxay ganacsiga in marka ay hawl badan ka qabteen waxa lagu heshiiyay tareen ka soo baxaya Riyaad ilaa Dooxa oo koronto ku shaqeynaya in degdeg loo hirgelinayo marka mashaariic badan oo tareenada ku saabsan iyo waxyaabahaasna way isku afgarteen haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay bayaan ay soo saareen si wada jira Sacuudiga iyo Qatar ayaa lagu sheegay in la xoojinayo difaaca labada dhinac iyo deganaanshiyaha gobolka marka waxay soo kala warbixinta ka hadlaysaa ganacsiga iyo samaynta tareen korontada ku shaqeeya marka waa kuwaas iyaguna hawshaas ay wataan barnaamijkii galabnimo waa naga inta asxaabay kii subaxnimana qodobo muhiim ah ayaa ku jira inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo